dhammaantood siday u dhisteen dhulkoodii nabada u dhidubeen qalbigiya waay dhammaantood siday u dhisteen dhulkoodii nabada u dhidubeen عبد الرحمن يا باشا محمد فضل ناصر علي الشريف ممكن كل واحد اللي يراك صوبين بشيرة حسنتي أهلا وسهلا شو دوالة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كنت وحا فرحدنا إن السفر كيجي ديرات يعني أوصل بلونو ودول خليجك أنت أنا كان ودك إنجليزك يمانتو أنا جونا فاف وتحتمك يمانتو وقتي وقتها فرحد مركلة إيرانو سفر كيسي وضعنا سفر كاس وقتي أنا نقول قليني سيدا أي سعطات حسب قوتني هوليسا مثلا هذا ودول العرب يقارب يوروب سواء كان الكل كليني شايلها هيسا مايلان ودول كلهم يسألون ليهم يحالة الكل كليني وحنا هذا علينا سواء سويسين شرف بيناتنا وانا مهستي سيدا وناس الشيء وهي أقل سوى وين نحتاج شيء أبي أقول لكم هذا هنا إن السوق يصير ساق واحد بسرعة بحنا مقالة لندن ذاك إنجليزكا سفر كان ليش يعني كان عرض الصوماليين عبر نورث أمريكا قالوا نورث أمريكا كاينين فكان السوق هذا مني ذاك إنجليزكا إن كان يدك عن ديني عندهم إنه إيران حوالي نحن الله صوص الله فينا نقول إنسان بسيطون وحي مستقبل كائنية لأنه يصير وقت يدرون وشيء الدنيا دنا عن كرات الشرق آدي لو ما تنتهي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والسلام لله والصلاة Attention please, passengers Prema and the Silva are requested to proceed to any information from the bridge. هذا ما نفرح سنعي من المرة بعد من عند فرانكفورت دور يلا بعد شيء لا تصير كذي كسر أنا بقول هلكن كسر تقول لي تقال كسر كي ما تقال كي نقول لك السياد بقى بريان كسر على أنا هلكن كسر تقول ليش يقول السيد عن عقل جاي هاي ما أنت لا يدور جاني على القرية الشمال وحسب المدرب كابتن سلطان هلكن السيد يقول له كسر تقولين أو ملأ يعني يدوبيها حسب المدرب حسين أبي اسمع ورجع مدرس موجود inkastoo ay Soomaaliland ugu yimaadaan oo hawaa xisbiga xoog u wadaan haddana waxaan aad ugu faraxsanahay in mar labaad imaado sidaa uu sheegay labadeedii kulli ama saaxiib
iga horreeyey waxaan u nimid dardargelinta iyo boorka inaanu ka dhigno howlaha xisbiga wadani oo si xawliya uga socda dalka Jarmalka oo aanu hubno inay meel sare gaarsiiyeen guddiga oo madaxda u yahay Xuseen Abdi Cismaan oo ay ka fureen laamo fara badan waddanka wixii dhiman inaan la toosino inaan la dhisno inaan horumar uu xisbiga wadani waddanka Jarmalka ka sameeyo ayaan u nimid Dr. Fadal wuxuu ka yimid North America annaguna waxaanu nimid 29 bishii saddexaad dalka Ingiriiska waxaanu safarnay gobollada dalka Ingiriiska sida Birmingham, Sheffield, Bristol halkaa oo aanu kala hadlaynay madaxda Ingiriiska dardargelinta iyo raadinta Soomaaliya waxaan la kulannay Prime-Minister ku-xigeenka Nick Clegg waxaan la kulannay wasiiro waxaan la kulannay wasiiro hore waxaan la kulannay xildhibaanada u dooda madaxbannaanida Somaliland oo baadhi gurbeeda dhammaan meelihii aanu tagnay waxaan uga soo baxay guul fara badan magaalada Bristol oo ugu dambeysay degmooyinka aan tagnay waxay noo sheegeen inay nagala shaqaynayaan aqoonsiga Somaliland oo xisbiga wadani uu ka bilaamayo from bottom up approach waxa la oo halkii laga soo bilaabi jiray madaxweynaha ama ra'iisul wasaaraha iyo xildhibaanada golaha inaan golayaashii deegaanka ka doono ayay nagala shaqeyn waxaan noo ballan qaaday inay 8 magaalo oo la yidhahdo core cities magaalooyinka waaweyn ee Ingiriiska inay Bristol hogaaminayso oo ay imika warqado u kala dirtay waxaan moodaa halkaa inuu aqoonsigii Somaliland ka soo dhawaaday sidii madaxweynaha uu sheegay sirtii formulada ahayd Somaliland aqoonsiga xisbiga wadani baa helay insha Allahna 1 year's time marka aanu ku guulaysano kursiga ugu sareeya dalka waxaanu keeni doonaa aqoonsi buuxa oo imika gaaraysa